بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد casharkan waa casharkii saddexaad ee ku saabsanaa masaa-ishii ku saabsanayd qofka waxa uu ku muslimo ama shaksiga waxa loogu xukumo islaamnimo. waxaan sheegnay saddex qaab inay tahay binnasi aw bidilaalati aw bitabaciyati. waxaan ku dhex jirnaa binnasi, waxyaabaha caddeeyo oo nas ahaan u caddeeyo qofka in uu islaamnimadiisa la xukumo. taas ayaan ku dhex jirnay axaadiidtii ku saabsanayd. xadiidka afaraad ayaan marka joognay. alimaamu malik fii muwaطa'ihi waxa uu ku wariyey can ibni shihaabin الzuhriy can caطaaءi bni yaziid allaythiy can cubayd llaahi bni cadiy bni اlkhiyaar annahu qaal, wuxuu yihi cubaydullaahi baynamaa rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalama jaalisun bayna dahraanay الnaas, xilli nabiga salى اllahu عalayhi wasalam ou ahaa mid dadka dhexdiisa fadhiyo, id jaa-ahu rajulun, nin ayaa u yimid, fasaarahu waa u siraystay, hoos buu wax ugu sheegay. falam yudra maa saarahu, lama ogaanin waxa uu siraystay oo u siraystay, ilaa nebiguu gooni ugu sheegay sal l slam, xataa jahara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, ilaa nebiga uu isagu hadalka kor u qaaday. faidaa huwa yasta'dinu fii qatli rajulin min almunaafiqiin, ninkaasi nin munaafiqiinta ka mida inuu dilo ayuu ka fasax qaadanayey oo uu nebiga weydiisanayey. faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, nebigu waxa uu yihi xiina jahara, markuu warka kor u qaaday, alaysa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah, ninkaa miyounan ka marqaati kacaynin laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah arrintaa. faqaala rajulu, ninkii wuxuu yihi balaa, iska daa inuunan ka marqaati kicina, waa ka marqaati kacaa, walaa shahaadata lahu, laakiin shahaado ma uma sugnaanin, yacni waa iska dhahayaa maahane wax shahaado a ma laha. qaala alaysa yusallii, miyounan tukanaynin ounan tukanin? qaala balaa, walaa salaata lahu, salaadna ma lahan buu yihi. faqaala rasuulu llahi sal l slam, nebigu waxau yihi ulaa'ika aladiina nahaani illaahu canhum, kuwaasi dadka ashhaadto oo salaada tukado waa kuwa uu rabbi iga reebay subxaanahu wa tacaala, waa kuwa alla uu iga reebay inaan u banbaxo oo aan dilo. xadiidka marka imaam maalik muwada'iisuu kusoo saaray, inkastoo mursal ahaan uu usoo saaray cubaydullaahi bni cabdillaahi uu taabici yahay oo uu sidaa markaa usoo saaray imaam maalik, laakiin alleyth bnu sacdin iyo ibnu akhi zuhriy labadoodaba zuhri bay ka wariyeen xadiidka can caطaa can cubaydillaahi can rajulin min alansaari annahu qaala baynamaa rasuulu llahi sal l slam. marka maalik keyrkiis ayaa xadiidka musnad mutasil isaga oo ah wariyeen. saalix ibnu kaysaan iyo abu uweysna ibnu shihaabay ka wariyeen can caطaa can cubaydillaahi bni cadiy ana nafara min alansaari xadahuuhu wasaaqa alxadiid. marka rawx bnu cubaadana xadiidka maaliguu ka wariyey isagoo musnad ah mutasil ah. idan marka maalig waa la iskugu khilaafay, isagoo musnad iyo mursalba waa looga wariyey, waxaa badan laakiin mursal ahaanta. gayru maalikna ibnu shihaab wuxuu uga wariyey musnad ahaan iyo mutasil ahaan. intaa marka waa riwaayada xadiidka waxa ku saabsan. alimaam alxaafid abu cumar yuusuf bnu cabdilbar oo muwada'a sharxay, tamhiid iyo istidkaar iska leh, kitaabkiisa tamhiidka xadiidka afaraad ee axaadiidta maalig uu ibnu shihaab ka warinayo can caطaa ibnu yaziid waxa uu ku yidhi sidaan. tamhiidka wuxuu u qoran yahay tartiibta shuyuukhda maalik, yani imaam maalik shuyuukhda uu xadiidka ka warinayo ayuu ku socdaa. marka intii isku yani sheekh walbaaba meeluu isugu geynaya axaadiidta uu maalik ka wariyey, wuxuuna ku socdaa xuruufta hijaa-iga ah, dariiqada maqrib ayaana uu ku socdaa. marka xadiidka afaraad
axaadiidta maalik ou ibnu shihaabi zuhri ou ka warinayo can cataa ayuu hadalkan ku yidhi. waa mujaladka 7 safxada 27 dabcada muasasatu alfurqaan ay daabacday oo bashaar cawaad taxqiijiyey. wuxuu yihi wafiihi ibnu cabdilbar wafiihi ana man adhara الshahaadata bian laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah, qofkii muujiyo shahaadateynka xuqina damuhu, dhiiggiisa waa la ilaalinayaa, ilaa an yaأtiya maa yuujibu iraaqatah, ilaa inuu la imaanayo wax in la daadiyo dhiiggiisa waajibinaya maahani, mimaa furida calayhi wixii lagu farad yeelo min alxaqi xaqi ah almubiixi ee banaynayay liqatli nafsi اlmuxarama, nafsada dhiiggeeda la xarimay dilkeeda. yacni markuu nabigu leeyahy sal l slam ulaaئika aladiina nahaani illaahu canhum, waxa dhiiggiisa lagu ilaaliyey ninkan maxay tahay? wuxuu muujistay islaamnimo. inuu islaamnimada muujistayna muxuu ku muujistay? ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu ana muxamada rasuulu llah, taasuu ku muujistay islaamnimada. iyo salaadii uu dukanayo iyadana camal ah. xadiidka marka waa xadiidka afaraad. xadiidka shanaad alimaamu اlbukhaari fii saxiixihi wuxuu ku wariyey 391 xadiidka raqamkiisu uu yahay can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam man salaa salaatana, qofkii salaadeenna tukado, wastaqbala qiblatanaa, qibladeenna u jeesto, wa akala dabiixatanaa, waxa aan gowracnana cuno oo inay bannaan tahay u arko, fadalika almuslim, kaasu waa muslimka aladii lahu dimat اllahi wa dimatu rasuulihi leh, falaa tukfiru llaha fii dimatihi, ilaahay ha ku khiyaaninina magantiisa, magangelyadiisa. xadiidkan marka alimaamu الnasaa-i sunanu suqraaga ama almujtabaa ayuu kusoo saaray, tarjamadana sidaanuu ka dhigay taxta baabun sifatu lmuslim ayuu yihi, sifatu lmuslim, muslimka tilmaantiisa. ibnu abi shaybana musanafkiisa uu ku wariyey sidaanu isagunu tarjamay maa qaaluu fii wadci اljizyati wاlqitaali calayha, waxa qofka dagaalka iyo jizyada looga dhaafayo. haddii dagaal iyo jizye laga dhaafana muslimnimaa loo aqoonsaday, waayo waxaan jizyada laga qaadin waa muslimkan jizye laga qaadin, waayo gaalku hadduu yahay nasraani iyo yahuudi iyo majuusi waa laga qaadaa jizyo. qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba. sunnada nebigana xadiidkii cabdiraxmaan ibnu cawf waxay sheegaysaa majuusta in laga qaaday jizyada. wixii aan saddexdaas qolo aan ahaynna iyaga jizyo laga qaadi maayo, laakiin waa lala dagaalaa. haddii mar dagaalkiina la joojiyey jizyadiina laga joojiyey, qofkaas waa muslim, wax kale ma noqonayo. nacam, tarjamadaasuu marka samaystay. markaasuu yihi maa qaaluu fii wadci اljizyati wاlqitaali calayha, xadiidkana wuxuu ku daray waman abaa, qofkii intaa diido facalayhi اljizyatu. ibnu mandah kitaabu liimaan ayuu xadiidkan ku wariyey 194 xadiidka uu raqamkiisa yahay. wuxuu yihi dikru اlأkhbaari alatii jaaءat can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam addaalati calى asaasi اliimaani wa shucabihi, akhbaarta tusayso iimaanka aasaaskiisa iyo qeybihiisa. wa fii awalihi, xadiidkan marka awalkiisa sidaanu isaga yidhi man shahida an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah wastaqbala qiblatana. yani kii bukhaari iyo muslim riwaayadii bukhaari man sallaa salaatanaa bay ahayd ayuu ka bilaabay. wuxuu noogu daray isaga, waana meesha maxalu shaahidka ah, ibnu manda man shahida an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah wastaqbala qiblatana ilaa aakhirihi. abu jacfar aلطaxaawi isagana sharxu macaani اlaathaarkuu kusoo saaray xadiidkan, baabkana wuxuu ka dhigtay maa yakuunu الrajulu bihi musliman, waxa uu qofku muslim ku noqonayo. wuxuu yidhi fadahaba qowmun, culimada ahlucilmiga dad kamida waxay ku tageen ilaa ana man qaala qofkii yiraahdo laa ilaaha ila اllah faqad saara biha musliman, laa ilaha illa اllahu qofkii yiraa inuu muslim ku noqonayo.
lahumaa lilmuslimiin wa calayhi maa calayhim, waxay muslimiinta leeyihiin buu leeyahay, waxa dushooda ah ayaa dushiisa ah. waxtajuu fii dalika bihadihi اlaathaar, axaadiidtaanayna deliishadeen ayuu yidhi. qoomkaas marka yow ka wadaa yidhi laa ilaaha illa allahu qofka hadduu ku dhawaaqo waa ku islaamayaa. qoomkaa marka uu sheegayo saciid bnu lmusayab iyo daa'ifa min asxaabi alxadiid waaye. sidaasna waxaa faa-iideeyey alxaafid badruddiin alcayniyu kitaabkiisa nuqabul afkaarka oo sharxu macaani laathaarka uu ku sharxay. badruddiin alcaynina de ibnu xajaray isku waqti ahaayeen cumdatulqaariga iyo sheekha iskale waa macruuf. marka qoladan daxaawi laa ilaaha illa allahu qofku hadduu yiraa waa ku muslimayaa ma aha, murji-a ma aha. waxaan rabaa hadalkaa markaan u leeyahay waxay tahay qolo dhunsan oo murji-a ah ma aha. waa saciid bnu lmusayab oo sayidu taabiciin lagu sheegay, la yaqaano oo yacni min alfuqahaa sabca ka mid ah, iyo daa'ifa min asxaabi alxadiid. qolooyinka kale waxay uga duwan yihiin waa sheegi doonaa, laakiin muhiimku waxay tahay beryahan dambe dadka waxaa ku batay qofka haddii isaga la yihaaha war waxaasaad aaminsan tahay waana qalad, oo adilo loo keeno iyo wixii culimada yiraahdeen loo keeno, si fudud buu isagana wuxuu caamada ugu wareerinayaa, uu leeyahay kuwaasuna waa murji-a ayuu leeyahay. nacam caamadu marka hadday maqlaan murji-a khawaarij ay maqlaan waxay u fahmayaan wadaaddo iscaynaya bis inay arrintu tahay. marka arrintii marka muhiimka ahaydee weyneyd baa basiid laga dhigaa. nacam waxay ahayd inuunan dadna wax dhihin caynine uu yiraahdo yacni fakerkaas murji-adaa qabto waxaanaana u daliil ah inuu dhaho, laakiin inuu ku gaabsado keliya murji-a dadka uu u sheegaana aynanba aqoonin man hum lmurji-a, bal laga yaabo isagaba inuunan aqoonin ay dhici karto, ma wanaagsana. sidaas yani baxhiga cilmiga waa ka baxsan tahay. ayb qaala marka alimaamu طaxaawi baa warkii watee wakhaalafahum fi dalika aakharuuna, kuwo kalaa ku khilaafay. faqaaluu waxay yidhaahdeen laa xujata lakum fi hadihi alaxaadiid, axaadiidtani xujo idinkuguma sugna, lianna rasuula اllahi sal ll slam nebiga inamaa kaana yuqaatilu qowman, nebigu wuxuu la dagaalamayay dad laa yuwaxiduuna allaha caza wajalla, qolo aan ilaahay waxidin, mushrikiinuu nebiga la dagaalami jiray oo aan iyagu marka waxdaaniyada alla aan ogolayn xagga cibaadada. fa kaana axaduhum marka midkood wuxuu ahaa idaa waxada allaha, hadduu laa ilaha illa allahu yiraahda bis, culima bidalika waxaa lagu garanayay tarkuhu limaa quutila calayhi, wixii lagula dagaalamayay inuu ka tegey, wa khuruujuhu minhu inuu ka baxay. warkiisu waa dheeryahay, waa akhrinayaa dhammaantiis, laakiin hal qodob ayuu warkiisu ku wareeganaa, in la fahmana u baahan. gaaladii laba noocuu ka dhigi rabaa isaga. labada nooc waxay kala yihiin mushrikiin iyo yahuud. nasaaradu markaa mushrikiintay soo gelayeen ayaga ogow. marka wuxuu rabaa inuu yiraahdo waayo maxaa yeelay nasaaradu iyaga dee 3 ilaah iyo cibaadada yacni ciise iyo waxbay qabaan, saasay mushrikiin meeshaan markaan joogno ay ku yihiin. marka mushrikiinta iyo nasaaradu maalan wuxuu rabaa inuu yidhaha mushrikiintu waxa lagula dagaalamayey oo nebigu uu kula dagaalamayey waxay ahayd war allaha wax ilaaha wax abuuray oo koonka isaga maamulayo keligiis cibaado inuu astaahilo oo xaq u leeyahay qira. dooda mushrikiintii iyo nebigu meeshaasi ka taagneyd. haddii marka uu laa ilaaha ila allahu keliya uu yiraahdo, meeshaa maxaa ka soo baxayo wixii laysku haystay inuu ka tegay isaga wixiisii mabdi-iisii, waxdaaniyadiina inuu ogolaaday. marka wuxuu rabaa inuu yiraahdo laa ilaaha illa allahu hadduu mushrigu yiraahdo towxiid inuu qiray waa laga fahmaa intaas, ilaa awalba isaga towxiidkaa lagu haystay. laakiin laba qolo miduu aadi rabo lama oga, laba qolo oo towxiidka sheegto miduu ka aadi rabo lama oga. yahuud oo ayagu marka waxdaaniyada ogol, yahuuddu laa ilaha illa allahuda waa ogolaayeene saan sheegi doono. marka mushriknimadiibuu ka baxay, ma wuxuu rabaa inuu yahuudi noqdo oo diimaha aan islaamka ahayn ee towxiidkana sheego miyuu ku biiri rabaa, mise
wuxuu ku beeri rabaa tawxiidkii muslimiinta nacam oo risaaladii iyo macaanidii kaleo dhan ay la socotay lama oga. marka wuxuu leeyahay qofka mushriga ah haddii uu laa ilaha illa allahu yidhaahdo dagaalka asaga waa laga joojinaa. ilaa waxaan kula dagaalamaynaaba tawxiidka ahaa hadda waxba u qiray xaggee u socotaayaa la dhahaa markaas ka bacdi. naam ayb yahuuddii baa soo hartay. yahuudda iyaga laa ilaha illa allahu keliya laga yeeli maayo, waayo iyaga risaalada nebi maxamedeyba inkirsanaayeen. waa inay risaaladii nebiyullaahi maxamed ay qiraan oo maxamedun rasuulullah ku daraan. intaas loogama haraayo iyaga welibe risaalada nebi maxamed inay caam tahayna waa inay qiraan oo iyaga ay waajib ku tahay una hogaansameyn. waayo yahuudda nebiga waatay ku dhihi jireen nashhadu anaka nebiyun, inaad nebi tahay waa qiraynaa, mana aynan ku muslimin arrintaas. rasuul inaad tahan qiraynaa, carabaa laakiin lagu soo diray, waxaasay aaminsan yihiin. marka yahuudiga laa ilaaha illa allahu keliya laga yeeli maayo, isaga looga joogsan maayo xataa. waayo taas awalba isagoo yahuudi abuuba qabay waana ku ogeyn. risaaladii nebi moxamed cumuumkeeda inuu qiraa laga rabaa, ama inuu ka beri noqdo yahuudiyadii. marka labadan yani daxaawi isaga warkiisa qoladan dambe sidaas waaye ayuu ku socdaa. haddii mushrigu uu yihaha laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullah ou dhaho la labalabayn maayo, islaamnimadiisi waa loo sugaa. yahuudigu haddii uu yihaahdo laa ilaha illa allahu muxamedun rasuulullah risaalada cumuumkeedana ou qiro isagana waa loogu sugaa. intaas shahaadateynkii wada socdo maaha waxaa laga hadlaa, waa hal qeyb laa ilaha illa allahuda keliya. ayb marka adigoo intaas og marka wuxuu leeyahay alimaamu daxaawi haddii uu mushrigu laa ilaha illa allahu iyo qowmka nebiga uu la dagaalama mushrikiin ay ahaayeen, hadday laa ilaha illa allahu yidhaahdaan taa waxayna tusaysaa inuu ka tegay wixii lagula dagaalamayo shirkiga ah iyo inuu ka baxay. walam yuclam bidalika laguma ogaanayo intaa keliya dukhuuluhum fi lislaami inay islaamka soo galeen, ow bacdi almilal ama diimaha kale alatii tuwaxidu llaha waa yahuudiyadee labadaa midda ay galeen lama ogaanayo. ow bacdi almilal alatii tuwaxidu llaha wa takfuru bihi oo ilaahayna ku gaaloobayo. maxay ugu gaaloobayeen? bijaxdihaa rusulahu, diidista ay rususha alla diidayaan. marka ninkani mushriga markuu laa ilaha illa allahu bis yiraahdo ma yahuudi buu noqon rabaa mase islaam uu noqon rabaa yaan la ogeyn buu leeyahay. naam wagayri dalika min alwujuuhi iyo waxyaabaha keyrkeeda oo wujuuh ah alatii yakfuru bihaa ahluhaa maca tawxiidihim lilaahi caza wajal. yani iyagoo dad waxaa jira de cibaadada allah iskale keliya ogol, laakiin macno kale ku kufrinayo oo inay risaalada nebiga diidaan ah. marka ma kuwaasay u socdaan mase waxay u socdaan muslimiintii dariiqoodii baan la ogeyn. fa kaana xukmu haa-ulaa'i markaan kuwan xukunkooda wuxuu noqday allaa yuqaataluu inaan lala sii dagaalamin idaa waqacat haadihi shubhatu, shubhadan markay timaado laa ilaha illa allahu ay dhahaan, xataa taquuma alxujatu ilaa xujada ay ku qumto calaa man yuqaatiluhum dadka iyaga la dagaalamayo muslimiinta ay xujada ugu qumto biwujuubi qitaalihim dagaalkooda inuu waajibayo. yani markay laa ilaha illa allahu yidhaahdaan waa ka istaagaa qofka muslimkee la dagaalamayay, waa hubinaa markaas waraaye ma yani ma tawxiidkiinu muxuu yahay, risaalada nebiga ma ogoshihiin? haa hadday dhahaan bis waay dilkoodu ma banaana. haddii ay yidhaahdaan markaasi maya ay dhahaan ma ogolen risaalatu moxamed, ee markaas inay baabkoodu weli aynan islaamin baa la garanaa, markaasaa dilkoodu ou banaanaana. ayb falihaada kafa rasuulu llahi sal l slam kan dartiis ayuu nebiga uga joogsaday can qitaali man kaana yuqaatilu dadkii uu la dagaalamayay dagaalkooda biqowlihim ay yidhaahdeenuu uga istaagay laa ilaha illa allah, waa hal gees bis. fa amaa man siwaahum min alyahuudi kuwaa wixii kasoo harayo yahuud ah fa inaa qad ra'aynaahum yashhaduuna an laa ilaha illa allah. alimaamu daxaawi wuxuu leeyahy waxaan aragnaa inay laa ilaha illa allahu dhahayaan, wayajxaduuna الnabiya sal l slam nebigana ay diidayaan, falaysuu biiqraarihim bitowxiid illaahi caza wajala muslimiina. laa ilaha illa allahuda keliya muslimiin ku noqon maayaan yahuudda. id kaanuu jaaxidiina birasuuli llahi sal l slam, waxay ahaayeen nebigay diidayeenba. faidaa aqaruu birasuuli llahi sal l slam hadday nebiga qiraan risaaladiisa, culima bidalika waxaa lagu ogaanayaa meeshaas khuruujuhum min alyahuudiyati, yahuudiyada inay kasoo baxeen,
walam yuclam la ogaan maayo laakiin bidalika kaa lagu ogaan maayo dukhuuluhum fi lislaami inay islaamkii soo galeen liannahu qad yajuusu waxaa dhici karto an yakunuu qad intaxaluu qowla man yaquulu ina muxamedan rasuulullahi ila alcarabi khaasatan waxaa laga yaabaa weliba yahuuddu muxamedun rasuulullah keliya laga yeeli maayo xataa ma waxay u wadaan rasuul carab u yahay mase risaaladiisu waa caam yaan la ogeyn waqad amara rasuulu llahi sal l slam nebiguna wuxuu amray xiina bacatha caliyan yani cali marku diray radia allahu canhu ilaa khaybara oo u diray iyo wa ahlihaa dadkeeda wa ahluhaana yahuudu dadkeeduna ay yahuud yihiin yani wuxuu leeyahay wuxuu ku yihi nabiga qaatilhum yahuudda la dagaalan xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulullah loogu daray faidaa facaluu dalika faqad manacuu minka dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha wa xisaabuhum cala allahi xadiidkaasuu marka keenay fafii hada alxadiidi waxaa ku sugan buu yihi xadiidkan ana rasuula allahi sal l slam nebiga qad kaana abaaxa lahu qitaalahum cali wuxuu u baneeyey inuu la dagaalamo yahuudda wain shahiduu an laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah haba ka marqaati kaceen xataa yashhaduu ilaa ay ka marqaati kacaan maca dalika laa ilaaha ila allahuda maceeda ana muxamedan ilaa ay kaga marqaati kacaan liannahum qad kaanuu yuwaxiduuna allaha caza wajala allay waxidi jireen walaa yuqiruuna birasuuli llahi sal l slam risaalada nebiga ma qiri jirin faamara rasuulu llahi sal l slam caliyan radia allahu canhu nebiga cali buu amray biqitaalihim inuu la dagaalamo xataa yaclama ilaa cali ou ka ogaado khuruujahum mima umira biqitaalihim calayhi min alyahuudiyati ilaa cali ou ka hubsado ka ogaado nimankan inay yahuudiyadii lagula dagaalamayay ay ka baxeen iyo in kale kamaa amara biqitaali cabadati alawthaan dagaalka mushrikiinta sida uu nebiga u amray xataa yuclama ilaa la ogaado khuruujuhum mushrikiintu inay ka baxeen mimaa qutiluu caleyhi wixii lagula dagaalamayey walaysa fii iqraari lyahuudi yahuud qiridooda aydan bian laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulullah ay qiraanna ma ku sugna maa yajibu an yakunuu muslimiin inay muslimiin yihiin wax keenayo walaakina nabiya sal l slam laakiin nebiga amara bitarki qitaalihim ayuu ka tegey markay sidaa dhahaan idaa qaaluu dalika hadday dhahaan liannahu qad yajuusu waxaa banaanaan karo dhici karto an yakunuu araaduu bihi lislaam inay islaamka kala jeedaan ow gayra alislaami inay kala jeedaan oo maxamed carabow rasuul u yahay inay ka wadaanna waa dhici kartaa fa amara bilkafi can qitaalihim buu faray marka in dagaalkooda laga istaago xataa yuclama ilaa la ogaado maa araaduu bidalika waxay kala jeedaan kamaa dakarnaa fima taqadama min mushrikii alcarab waqad ata alyahuudu ilaa rasuuli llahi sal l slam yahuud nebigay u yimaadeen faaqaruu binubuwatihi nebinimadiisay qireen walam yadkhuluu fi lislaami islaamkana kuma gelin arrintaa falam yuqaatilhum lama dagaalamin calaa ibaa'ihim addukhuula fi lislaami diidistooda ay islaamka diida inay galaan ay diideen id lam yakunuu cindahu bidalika aliqraar muslimiin waayo iqraarkaasi ay nebiyaa tahay muslimiin kumaynan noqonin kadib axaadiidtaa iyuu soo kaxeeyey warkiisa aada buu u dheeryahay laakiin nuxurka warkiisa wuxuu yahay mushrigu marka lala dagaalamayo laa ilaaha ila allahu keliya intaa hadduu dhaho waa lagaga joogsanaa kadib marka risaaladii nebiga inuu laasimo iyo ilaa markaa taasaa la ogaana hadduu risaaladii nebi moxamedun rasuulullah uu ku darsado shareeco ama sharaa'icda islaamka uu iltizaamo khalaas muslimnimadiisa waa caddaatay laakiin laa ilaha illa allahuda intaa uu yiraahdo wuxuu uga badbaadayaa in lala sii dagaalamo waayo isaga maxaa awal lagu haystay uluuhiyada alle iyo cibaadada allow cid kale siinayay yahuudigu laakiin hadduu dhaho ashhadu an laa ilaaha illa allah intaa keliya looga hari maayo dagaalka waa lagu sii wadi karaa wa ana muxamedan rasuulullah buu ku daray waa laga joogsanaa haye risaalada nebiga caam miyaad ka wadaa mase khaas ayaa la dhahayaa hadduu yihaa cumuumu risaalan aaminsanayo islaam waay bis waay marka nuxurka warka daxaawi marka waa sidaan uma qaala wuxuu yihi markaa fafii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan ana alyahuuda yahuudda kaanuu aqaruu binubuwati rasuuli llahi sal l slama nebiga nebinimadiisay qireen maca towxiidihim lilaahi tacaala iyagoo ilaahay waxido
falam ya'mur bitarki qitaalihim rasuulullahi sal ll ly slam nebiga dagaalkooda in laga taga ma amrin xataa yuqiruu ilaa ay qiraan bijamiici maa yuqiru bihi lmuslimuun waxay muslimiinta qiraan oo dhan fadalla dalika kaa wuxuu tusay annahum lam yakunuu bidalika alqowli muslimiin hadalkaa inaynan muslimiin ku noqonin wa habata ana alislaama meeshaa marka waxaa ku sugnaaday islaamku laa yakuunu ma sugnaanayo mana ahaanayo ilaa bilmacaanii buu ku sugnaanayaa macaanida allatii yadullu cala adukhuuli fi lislaam macaanida in islaam qofkan ou galay tusaysaa islaamka ku sugnaana iyo wa tarki saa'iri lmilal diimaha kale ka tegisteeda oo dhan hadalkiisa marka daxaawi warkiisu sidaas ayuu u dheeryahay khulaasadiisana waa taa aan labada jeer tilmaamay ee waxaan ka hadlaynana waxay tahay annaga horena waa u tilmaamay axkaamta muslimiin qofka axkaamta adduunyadan ka hadlaynaa ama axkaamta aakhiro taa iyado annaga ma sheegayno waayo axkaamta aakhiro waxyaabo badan oo quluubta ku jiro inaga anan daalacaninoo rabbi un daalacanayaa jiro laakiin adduunyada qofkan salaadou dhinto ma lagu tukanaa qubuuraha muslimiinta ma lagu aasayaa yacni dabaa-ixday waxau gowraco ma cunaynaa axkaamtan adduunyada qofkii bin nasi ula imaado shahaadateynka waa u qiraynaa axkaamta adduunyada ayb in islaamnimaan ugu qiraynaa waana midaa binasida ayb marka alimaamu nawowi rawdatu daalibiinka wuxuu ku yiri juska 657 dabcada feyxaa faslun fii ma taxsulu bihi towbatu lmurtadi wa fii macnaaha islaamu lkaafiri اlasliy qofkii diinta ka baxay towbadiisu maxay ku ansaxeen ay ku xasileen waxaana la macno a buu yihi gaal asli ah muxuu kusoo islaama fasalku sidaas u guntan yahay markaa wuxuu yihi waqad wasafa الshaaficiyu radia allahu canhu towbatahu alimaamu shaafici wuxuu tilmaamay towbadiisa qofkii diinta ka baxay ama gaalka asligaa waxa uu ku towbad keenayo faqaala wuxuu yihi alimaamu shaafici an yashhada an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah wayabra'a min kuli diinin khaalafa alislaam shahaadateyinkii u qiranaa wuxuu ka beri noqonaa diin kasta oo islaamka khilaafsan nasraaniyad yahuudiyad wathaniyad kuwaasuu ayuu ka beri noqonaa meel imaamu shaafici sidaas uu ku yiri wa qaala fii mowdicin wuxuu yihi alimaamu nawowi meel kalena alimaamu shaafici wuxuu ku yiri idaa ataa bishahaadateyni hadduu shahaadateynka la imaado bis saara musliman muslimu ahaana marka uu noqonaa markaasuu alimaamu nawowi yihi walaysa hada biikhtilaafi qowlin cinda jumhuuri اlasxaab hadda laba hadalaan haynaa wuxuu ku islaamaa buu yihi ashhadu an laa ilaha illa اllah wa ana muxameda rasuulu اllah wa an yabra'a min kuli diinin khaalafa alislaam ta kalena muxuu yihi bimujarad shahaadateyn uu ku islaamaa baraa-adii ma sheegin midaan dambe marka wuxuu leeyahy laba hadal oo iska hor imaanaya ma ahan alimaamu nawowi baa sidaa dhahayo jumhuur lasxaab sida ay sheegeen kamaa dakarnaa fi kitaabi dihaar sida kafaaratu dihaarka aan kusoo sheegnay bal yakhtalifu alxaalu biikhtilaafi اlkufaari wa caqaa'idihim labadaas qowl ee shaafici gaalada hadbasay u kala duwan tahay ayaa mid walbaa u laabanayaan oo markaa hadduu yahuudi ahaana laabudda min baraa'atin ayaa laga raboona ilaa isaga wixiisa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ana muxamedan rasuulullahdiisa weli ixtimaalaa jiro rasuulullahi ila alcarabi muu ka wadaa yani cumuumu risaala miyuu ka wadaa maadaama ixtimaal imaanayo waa in ixtimaalkaas la zuuliyo maxaa lagu zuulin karaa yahuudiyadii inuu ka beri noqday mushrigana labadaa hadduu ku dhawaaqo waab ku filan tahay isaga qaala albagawiyu alimaamu albagawi waxa uu yihi weli warka imaamu nawowi baa soo naqlinaya waxyaabahan o dhan in kaana alkaafiru wathaniyan gaalku hadduu mushrig ahaa ow hanawiyan ama majuusi ou ahaa laa yuqaru bilwaxdaaniyati towxiidka loogu qiri maayo laa yuqiru cafwan haddii uu gaalku ahaa wathani mushrig ah ama majuusi kaas oo laa yuqiru bilwaxdaaniyati towxiidba aan qiraynin fa idaa qaala hadduu yiraahdo laa ilaaha ila allahu ou dhaho
xukima biislaamihi islaamnimadiisa waa loo xukuma huma yujbaru calىa qabuuli jamiici اlaxkaam axkaamta islaamka inta kale waa lagu qasbaa marka hadduu sameey waaye maxaa ku dhacay murtadow noqona marka inuu murtad noqdo maxaa kuu cad marka in islaamnimadiisii la sugay soo ma arkeysa ayb wain kaana muqiran bilwaxdaaniyati hadduu waxdaaniyada qiri jiray munkiran binubuwati nabiyina sal ll ly slam risaalada nebigan uu inkiri jiray lam yuxkam biislaamihi laa ilaha illa allahda keliya loogu xukumi maayo islaamnimo xataa yaquula maca dalika ilaa uu la dhaho muxamedun rasuulu llah fain kaana yaquulu risaalata ila alcarabi alrisaalatu ila alcarabi hadduu dhihi jiray risaalada nebiga carab bisay ku wajahan tahay khaasatan lam yuxkam biislaamihi islaamnimadiisa la xukumi maayo xataa yaquula ilaa uu dhaho muxamedun rasuulu llahi ilaa jamiici lkhalqi ilaa uu ka dhaho ow amase yabra-a min kuli diinin khaalafa alislaam ama uu ka beri noqdo diin kasto oo islaamka khilaafsan marka bara-adani marka waxaa keliya yani muhimadda ay leedahay waxay tahay wixiisii hore inay wax ugu laabnaayeen ugu laaban yihiin iyo in kale meesha ka saareen laakiin qof waalidkiis muslim ahaa asagii oo islaamnimadii ku dhawaaqayo salaadii dukanayo risaalada nebiga cumuumkeedaba ogol yahay oo diimahan kale kirishtaan yahuudiyad wathaniyad gaalnimo u arko inaad tiraahdid maya bara-a lagama helin bara-ada haddaad tiraa fasirna waa ka hadli doonaaye fasir marka la yihaahdana macnaheedu wuxuu noqonayaa kooxda kuma jiro waxayna kugu caddaanaya arrintaa haddaad rabto qof uunan aqoonin weligiis arkin ayuu maqlayaa oo aadaamayo ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamedan rasuulullah dhahayo ma u qiraysaa baad leedahay islaamnimada mayuu leeyay ma u qira waa u sugaa waa hubina maxaad ku hubinaysaa laba meelay kala maraan mararka qaar waxay yidhaahdaan islaamnimou ku dhawaaqayaa laakiin mushrikiintii kama beri noqonin haddaad su-aal kale ku celisid ninkan adiga miyaa taqaano inuunan ka beri noqonin iyo in kale maba taqaanidin magaalo kale uu ka yimid xamar uu soo galay dadkama yaqaan qof ashhaadanayu arkay inuu ictiqaadiyo baraa-a ninkan ma qaadanin oo mushrikiinta kama qaadanin inuu ictiqaadiyo sideebuu ku gaaray go-aankaas ma arkin isagoo baraa-a la-aan ah ma maqlin keliya wuxuu ku tuhmaa waxay tahay wixii kooxdaada aan ahayn baraa-a ma qaataan ayuu iska dhaadhiciyey islaamnimadii marka baraa-adii marka waxay noqonaysaa in dadkaa kale laga beri noqdo oo keliya un loo soo beri noqdo iyaga barnaamijkaasna marka waa barnaamij naafic ilasraq oo khawaarijta ka mid ahaa iyo hogaamiyaashii khawaarijta asaariqada ka mid ahaa ayaa barnaamijkaas aaminsanaa naafic ilasraq waana sheegi doonaa oo meelaha dambe ayaan ku sheegi doonaa imtixaan dadka la imtixaano oo lagu imtixaano baraa-a ma qaadatay iyo la yiraahdo najdat alxaruuri iyo naafic ilasraq iyo nimankaa unbaa lagu aqoon jiray dadka muslimiinta waxyaabaa laguma aqoonin kale ayb marka wain kaana kufruhu alimaamu lbaqawi wuxuu leeyay hadduu gaalnimadiisu ay ahayd bijuxuudi fardin farad inuu diido aw istibaaxati muxaramin ama shay xaaraan uu banaystay lam yasixa islaamuhu islaamkiisu ma ansaxaayo xataa yaأtiya bishahaadateyn ilaa uu shahaadateynka la imaado wayarjica cama اctaqadahu wixii uu ictiqaadiyeyna oo ka laabto maalan ninkan wuxuu ku gaaloobay salaada wujuubkeediiba u inkiray waxaa inuu soo towbad keeno u rabaa shahaadateynkii ku dhawaaq wujuubu salaadna ogolow iltizaam salaadii yaa la dhahayaa markaabu wuxuu yihi waxaa kaloo waa sii wadayo wayustaxabu an yumtaxana kulu kaafirin aslama biliimaani bilbacthi wuxuu leeyahy imaamu shaaficina sidaasuu qabaaye gaal kasta ee soo islaama waxaa wanaagsan buu yihi in lagu imtixaano bachiga qiyaama in laysu soo saaray ma rumeyneysaa haa taana marka daliilkeeda dabcan uu ka fiirinayo ibnu cabdilbar laftiisa tamhiidka iyo ayuu ku sheegaya oo dabcan waxaa kala duwan wayustaxabu markuu leeyahay u fiirso waxna waa lagu soo islaamaa oo waxa lagu islaamo daahirka waa maxay shahaadateynka inuu la imaaday waxyaabihii aan hadda soo sheegnay markuu la imaado kadib
iyadoon waxba lagu imtixaanin bacthi ma rumaysan tahay la dhihin haddii uu yidhaha laakiin anugu aakhira ma rumaysni markaasuu gaaloobaa gaalnimadiisa noocay noqone murtaduu noqona waayo markii hore islaamnimadiisa waa lasoo sugay haddana wuxuu ka baxay arkaanul iimaankii baa laga waayey qof marka wuxuu noqonayaa islaamnimo soo maray ka ridoobay istixbaab buuna markaa uu cabirayaa haddaba haddaad intaas ogaatay oo arrintaa ay agtaada ku taqarurtay waxaadan moogaanin warkeenoo dhan meeshuu ku biyo shubanayo waa maxay qof gaal ah islaamnimada sida uu kusoo gelayo maantao dhan waxaan ka hadlaynay gaal islaamnimada muxuu kusoo galaa ee inagu ka hadli maynin qof islaamnimadiisu sugnaatay shareecada iltizaamay muslimnimo lagu yaqaano kama hadlaynin kaas isaga in la yiraahdo waa imtixaanaynaa iyada lafteeda diinul khawaarij ah waanan cadday doonaa insha allahu tacaala intaas marka waxaa ku dhammaaday adariiqu lwal ama adariiqu luulaa dariiqada koowaad ee qofku islaamnimadiisu lagu sugi karo axkaamtan adduunyada dhexdeeda oo waa maxay dariiqaas binnasi wax cad ayuu la yimid oo islaamnimada ku cad waa u sugaynaa islaamnimadiisa aakhiro xukunkeeda qalbigiisa maxaa ku jiray iyo xukun aakhiro waay taas innaga xukunka adduunyada ayaan ka waramaynaa dariiqada labaad marka waxay tahay addilaalatu dilaaladana marka casharka dambe insha allahu tacaala afaraad ayaan ku bilaabaynaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih